maalmoon markii la arkay dhaqaaqyo u muuqday inay ciidamada Eritrea ka baxayaan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya qaybo ka mid ah gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Adigrat waxaa hadda soo baxaya macluumaad cadeynaya in magaalada qaybo ka mid ah ay soo galeen dablay hubeysan oo ka tirsan jamhadda Tigray ee hore talada looga qaaday ee TPLF oo doonaysa inay qabsato deegaano muhiim ah oo ka mid ah gobolka Tigray oo hore dagaalkeeda xoogan ugu dhexmaray iyaga iyo ciidanka Ethiopia oo kaashanaya kuwa Eritrea bishii November ee sanadkii hore goobjoogayaal maxalli ah ayaa xaqiijinaya in ciidan ka tirsan TPLF ay yimaadeen agagaarka magaalada laba maalin markii ay ciidanka Eritrea ka baxeen saldhigyo muhiim ah oo ku yaalay duleedka magaalada kuwaas oo ay ku sugnaayeen tan iyo markii ay ka qabsadeen halkan TPLF wararaan ka helnay ka madax bannaan dhinacyada waxa ay xaqiijinayaan inuusan jirin dagaal ka dhacay magaalada oo ay ku soo galeen TPLF balse ay yihiin kuwa ku dhow goobahan oo aysan ka fogeyn ayna joogeen buuraleyda goobahan ku dhow taasna ay kaliftay inay maalmo u soo tallaabaan halkan magaalada ah Mareykanku bilihii la soo dhaafay waxa uu ku cadaadinayay Ethiopia in ciidamada Eritrea laga saaro gobolka Tigray taasoo ka dhignayd inuu doonayo mar kale inay Jaanis helaan kooxdan TPLF aqalka cad ee Mareykanku ma qarsan inuu doonayo wada hadal siyaasadeed lala galo kooxda TPLF diidmada ka dhalatayna waxa ay keentay cunaqabateyn xagga safarka lagu soo rogo qaar ka mid ah madaxda dawladda federaalka Ethiopia iyo Eritrea Ethiopia ayaa ka soo gudubtay hadda doorashooyin xasaasi oo halis laga qabay inay keenaan isku dhacyo hubeysan laakiin ilaa hadda ma jiraan rabshado laga soo wariyay gobolada badankood waxaa sidoo kale xoogaysanaya arrimaha ku salaysan guluf military oo uu qorsheynaya maalmihii la soo dhaafay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed dadka la socda arrimaha Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray iyo dagaaladiisa waxa ay leeyihiin Abiy iyo Afwerki waxa ay jilayaan riwaayad cusub taasoo ku wajahan inay doonayaan inay u muujiyaan reer galbeedka in ciidanka Eritrea ay ka baxeen gudaha gobolka Tigray laakiin taasi way ka duwan tahay xaqiiqadu ujeedaduna waa in TPLF laga soo saaro buuraleyda la keeno agagaarka magaalooyinka kadibna lala dagaalamo taasoo ah mid looga baaqsan karo in buuraleyda gudahooda dagaal culus uu ka dhaco halkaas labada dhinacba isku mari waayaan sida muuqata Eritrea waxa ay doonaysaa in gobolkaas marnaba uusan gacanteeda ka bixin ugu yaraana ay saameyn xoogan ku yeelato dhinaca kale Ethiopia waxa ay doonaysaa in TPLF la soo afjaro mana doonayso wada hadal iyo wada xaajood waqtigan inay la gasho taasoo Abiy Ahmed doonayo in gabi ahaanba la tirtiro laakiin waxaa taala xaalad xaqiiqo ah oo gobolkan ka jirta waana arrinta ku saabsan in dhufaysyada dagaal iyo buuraleyduba ay yihiin kuwa saameyn culus ku yeelan doona barbilowga dagaalka ilaa iyo dhamaadka Ethiopia guluf cusub oo military oo ay qaado ayaa loo arki karaa ugu yaraan inay hoos u dhici karto marka la eego dhammaan marxaladaha siyaasiga ah ee hadda Abiy Ahmed uu dhexda ka taagan yahay doorashooyin laga soo gudbay xaaladda ammaanka ee dalka gaar ahaan gobolka Tigray macaluusha ay tabinayaan qaramada midoobay cadaadiska Mareykanka dhaqdhaqaaqa cusub ee TPLF dhammaanba waa kuwa maareyn uga baahan doona maalmaha ugu horeeya ee muddo xileedka cusub ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ይጨነቃሉ ይንጋ በብዙ ያስባሉ